mararka qaar ma dareentaa inaad maalintaada oo dhan mashquulsan tahay laakiin habeenkii aad dareento inaadan waxba qaban waxaad furtaa taleefankaaga waxaad abtaa qaxwo waxaad leedahay waan bilaabayaa laakiin saacadaha ayaa si degdeg ah kuugu dhamaada adiguna wali waxaad dareemaysaa jahwareer iyo dib u dhac laakiin ka waran haddii aan kuu sheego in sirta wax soo saarka sare aysan ahayn inaad shaqayso 12 saac balse ay tahay inaad si sax ah u qorsheyso tamartaada diiradaada iyo waqtigaaga videogan waxaan kugula wadaagayaa nidaam aad u fudud laakiin si waali ah waxtar u leh nidaamka caawin kara inaad joojiso caajiska iyo dib u dhigista inaad maalintaada maamusho iyo inaad qabato shaqo badan adigoo aan maskax ahaan daalin habkani waxa isticmaala dad badan oo waxqabad sare leh waxa uu quruxda badanna waa inuusan u baahnayn ab qaali ah ama jadwal adag waxaad u baahan tahay oo kaliya warqad qalin iyo rabitaan aad naftaada ku hormariso marka videogan si fiican ula soco maxaa yeelay dhamaadka waxaad awoodi doontaa inaad samaysto qorshe maalinle ah oo si dhab ah noloshaada u bedeli kara fikradda guud ee nidaamka inta badan dadka markay qorshe sameynayaan waxay ku dhacaan khalad weyn waxay sameeyaan liis dheer oo howlo ah sida waxaan sameynayaa tan iyo tan kadib marka aysan dhammaystirin waxay dareemaan niyad jab laakiin nidaamkani wuxuu leeyahay fikrad ka duwan halkii aad diiradda saari lahayd imisa howlood ayaan dhameeyay waxaad diiradda saaraysaa imisa waqti ayaan si dhab ah diiradda ugu shaqeeyay waana farqi weyn daawade sababtoo ah howlaha isku mid ma aha howl 30 daqiiqo qaadata iyo howl 5 saac qaadata isku heer ma aha laakiin haddii aad si dhab ah u shaqayso waqti ayman waxaad si dabiici ah u sameyn doontaa horumar muuqda qodobka labaad ee muhiimka ahna waa waqtiga shaqada lama shaqaynayo hal mar oo dheer waxaa loo qaybiyaa fadhiyo shaqo fadhi kasta 25 daqiiqo haddii ay kugu adag tahay diiradda dheer waxaad ka dhigi kartaa 20 ama 15 daqiiqo laakiin muhiimaddu waa inta lagu jiro waqtigaas waxaad samaysaa hal shaqo oo kaliya taleefan la'aan scrolling la'aan mashquul kale la'aan kaliya adiga iyo shaqadaada waana halka sihirka wax soo saarka ka bilaabmo afarta shay ee aad u baahan tahay si aad u bilowdo nidaamkan waxaad u baahan tahay 4 waxyaalood oo fudud warqad iyo qalin waa hab aad u fudud saaxiibayaal mararka qaar qorshaha ugu fiican ma aha ab asri ah waa warqad cad oo maskaxdaada dejisa waxaad isticmaali kartaa note yar buug yar ama xitaa hal warqad oo maalin kasta ah muhiimaddu waa qorshahaagu ha noqdo mid muuqda oo hortaada yaala liiska howlaha muhiimka ah ha isku buuxin 20 howlood dooro ugu badnaan 3 howlood oo muhiim ah sababtoo ah marka uu liiskaagu bato maskaxdaadu way daashaa ka hor intaadan shaqo bilaabin waxa kale oo muhiim ah inaad howlaha beri qorsheyso habeenka ka horeeya tani waa sir ay isticmaalaan dadka waxqabadka sare leh sababtoo ah markaad subaxda kacdo uma baahnid inaad isweydiiso maxaan maanta qabanayaa waxaad si toos ah u bilaabaysaa shaqada dad badani waxay lumiyaan saacado badan iyagoo kaliya isku dayaya inay go'aansadaan waxa ay qabanayaan liiska waxyaalaha aad ku raaxaysato qodobkan dad badani ma fahmaan nidaamkan ma dhahayo shaqo kaliya samee maya wuxuu isticmaalayaa maskaxdaada si caqli badan qor waxyaalaha aad jeceshahay qaxwo shaah socod YouTube ono nasasho ama wax kasta oo farxad ku siiya waxyaalahan waxay noqonayaan abaalmarin maskaxdaadu waxay jeceshahay abaalmarinta marka aad shaqo qabato kadibna aad hesho waxa aad jeceshahay waxaad si dabiici ah u noqonaysaa qof doonaya inuu shaqeeyo mar kale go'aami tirada fadhiyaasha shaqada maalintaada inta ayaad rabtaa inaad si dhab ah u shaqeyso 8 fadhi 10 fadhi 12 fadhi haddii shaqadaadu u baahan tahay diirad badan 8 fadhi waa wax fiican haddii ay tahay shaqo fudud oo rootiin ah waxaad gaari kartaa 6 iyo 10 fadhi laakiin fadlan ha isku qasbin wax aan macquul ahayn ujeedadu ma aha inaad naftaada jabiso ujeedadu waa inaad noqoto qof joogto ah sida qorshaha loo dhiso hadda aan si dhab ah u dhisno maalinta bogga sare ku qor howlaha muhiimka ah ee maalintaada kadibna bilaab talaabooyinkan talaabada koowaad hal fadhi shaqo markiiba markaad maalinka bilowdo sababta guul yar oo degdeg ah subaxda waxay si weyn u kordhisaa firfircoonidaada maalinta inteeda kale xitaa ka hor qaxwahaaga waan ogahay dad badan qaxwaha subaxda waxay ula dhaqmaan si muqadas ah soo sax maahan saaxiib
laakiin isku day xitaa 15 daqiiqo oo shaqo ah waxaad dareemaysaa farqi weyn. Talaabada labaad, abaalmarin, dhaxwo, quraac, nasasho, wax kasta oo ku farxad geliya, laakiin ha ku dheeraan. Nasashadu waa inay ka caawisaa shaqada ee aysan ka saarin jawga shaqada. Talaabada saddexaad, dhowr fadhi shaqo oo xiriir ah, 2 fadhi, 3 fadhi, ama inta ku habboon tamartaada waqtigaas. Waqtigan badanaa waa waqtiga ugu awoodda badan maskaxdaada. Ka faa'iideyso, samee shaqada ugu muhiimsan. Talaabada afaraad, nasasho kale, ka kac miiska, socod samee, daawo cirka, hel hawo cusub. Mararka qaar 10 daqiiqo oo nasasho sax ah waxay ka qiimo badan tahay 1 saac oo daal ah. Kadib sidaas ayaad u sii wadaa shaqo, abaalmarin, shaqo, nasasho, shaqo, abaalmarin ilaa aad dhammayso tirada fadhiyaasha shaqada aad qorsheysatay. Qodobo muhiim ah oo ay dad badani ilaawaan. Waxaa jira dhowr qodob oo muhiim ah oo nidaamkan ka dhigaya mid shaqeynaya. Ha ku xirmin saacad adag. Ha oran, 2 baan bilaabayaa, 3 waan dhammaynayaa. Sababtoo ah noloshu mar walba si sax ah uma socoto. Waxaa jiri kara wicitaan, salaad, mashquul, xaalad degdeg ah. Haddii jadwalkaagu burburo, waxaad dareemaysaa niyad jab. Laakiin marka qorshahaagu yahay talaabooyin, waxaad si fudud ugu sii socon kartaa meesha aad joogtay. Salaada iyo nolosha caadiga ah waa qayb dabiici ah. Marka salaad la gaaro, tuko. Markaad u baahan tahay nasasho, naso. Qorshuhu ma aha habsi, waa nidaam kaa caawinaya nolol wanaagsan. Hal shaqo kaliya samee. Multitasking waa been ay dad badani aaminsan yihiin. Maskaxdu si fiican uma qabato dhowr shaqo isku mar. Markaad shaqo diiradda saarto, waxaad qabataa shaqo badan waqti yar gudaheed. Ha niyad jabin haddii aadan dhammaystirin wax walba. Tani waa muhiim. Waxaad qorsheyn kartaa 12 fadhi, laakiin aad qabato 7 fadhi oo kaliya. Taasi micnaheedu ma aha inaad fashilantay. 7 fadhi oo diirad leh waxay ka fiican yihiin maalin dhan oo jahwareer ah. Wax soo saarka dhabta ahi ma aha perfect, waa progress, horumar joogto ah. Waa hagaag saaxiibayaal, ugu dambeyntii guntii iyo gunaanadkii muuqaalkan. Haddii aad rabto inaad noloshaada beddesho, ha ku bilaabin waxyaabo waaweyn. Ku bilow 1 fadhi shaqo 25 daqiiqo oo diirad dhab ah leh maalin kasta. Haddii aad sidaas samayso, waxaad la yaabi doontaa qofka aad noqon karto 30 maalmood kadib. Qorsheynta saxda ahi ma beddesho oo kaliya maalintaada, waxay beddeshaa mustaqbalkaaga. Haddii fiidiyogan wax ku taray ama uu ku caawiyay, fadlan like saar, la wadaag qof walba oo u baahan inuu noloshiisa nidaam geliyo si uu uga faa'iideysto. Kanaalka subscribe saar si aysan kuu seegin fiidiyowyada xiga ee ku saabsan horumarinta nafta, wax soo saarka, iyo dhisidda nolol nidaamsan oo guul leh. Faalladahan noogu reeb imise fadhi shaqo ayaad qorsheynaysaa inaad beri samayso. Ilaa iyo fiidiyowga xiga, waa anigoo Yuusuf Show. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.